mana ahan mid la qaadan adiga kuma arkin waxyaabo qaldan horta yaa u baneeyay nin iyo naag inay albaab wada xirtaan ma ahan dhaqan wanaagsan taas yaa shiiqa waxaa lagu jiraa qarniga 20 markaan u galay oo aan la hadlay isaga xataa wuu i garaacay wuuna i furay asaga miyaa ku garaacay haa aniga ayuu i garaacay markaad la hadashay miyuu ku garaacay haa markaan weydiiyey yacni markaad xanaaqday oo aad maseertay kontaroolkana kaa dhumay ayuu ku garaacay miya kadibna waxaa dhacday inuu ku furo ku xirnaaw janaalkeena ashraf cj kuna soo biir adiga oo subscribe saaraya si aad wax badan ugu faa'iidid mahadsanid waxaa jira wax marka hore dadka ay ku qancaan balse dib dambe ayay kala kulmaan shilay iyo ciil waxaad mar walba nagala socotaan barnaamijkeena almusaamax kariim qisadeena maanta waa qiso isku dhex jirta waxay u dhaxaysaa suuriya falastiin iyo masar waana khilaaf waan arki doonnaa iyada oo faahfaahsan laakiin marka hore aan soo dhoweyno saaxiibad addacwa nadda cuuda soo dhawow nadda sidee tahay ii fadhiiso nadda waxaan arkaa xijaabka ilaa iyo wejiga kor inaad geysatay yacni ma rabtid miyaa in caalamka laga arko maya saanaan ku qanacsanaa ma rabi caalamka in laga arko asalkaaga falastiineed ayaa tahay sax waxaadna ku nooleed suuriya kadibna waxaad imaaday masar waxaana idinka dhexeeyey adiga iyo saaxiibtaada qiso aad u dheer sax aanu sharaxo dadka kadibna nadda ayaan siin doonnaa hadalka waxay ahaayeen saaxiibo ku nool suuriya waxay u soo guureen masar si ay ugu noolaadaan gabar walba waxay nasiib u yeelatay inuu guursado nin masri ah way isla noolaayeen kadibna way iskhilaafeen kadibna wixii ku dhacay ma ogi laakiin hadda ayay noo sheegi doontaa nadda iyada ayaan ka dhegaysanaynaa dabcan waxaa soo dhexgalay shaki oo khayaano ah saabiriin ka imaaday hadda saabiriin waa la furay naddana waa la furay saabiriin inta la qabo waxay ka shakisay nadda waxayna ugu shakisay ninkeeda in ay xiriir la leedahay hadda nadda waxay u imaaday in ay la heshiiso saabiriin waxaana laga joogaa 1 san iyo bar khilaafkooda waxayna rabtaa in ay u caddayso wixii dhacay sidoo kale waxay rabtaa in ay u cudur daarato saabiriin waxayna ku leedahay aniga iyo ninkaaga waxbana ma dhex marin ee dib u soo celi saaxiibtinimadeena noogu sheekay sidee u dhacday qisada ugu horreyn masar waxaan imaanay annaga sanadka 2009 aan idin sheego nadda waa falastiiniyad saabiriinna waa suuriyad wado annaga waxaan ku nooleen suuriya waqti aad u dheer weliba hal meel ayaan ku nooleen muddo kadib waxaa dhacday inaan ku heshiino masar inaan iska imaano waan imaanay waan guursanay 2 nin oo asxaab ahaan guursanay waxaan degnay hal cimaarad intaas kadib waxaa dhacday nolosheenna waxay ahayd mid aad u wanaagsan oo iska caadi ah yacni waa ku qanacsanay noloshaan noolnahay waxba naga hadlaysnay noloshiina way fiicneed nimankiina waxay ahaayeen asxaab nimankeena waxay ahaayeen 2 nin oo asxaab alashaan mid ka mid ah qoyskiina haddii uu mashaakil soo dhex galo qoyska kale ayaa xalinaya anigii ninkeyga haddii aan isdagaalno saabiriin iyo ninkeeda ayaa soo dhex galaya khilaafkeena oo xalinayay annagana sidoo kale waan xalinaynay yacni saabiriin iyo ninkeeda ayaa idin xalinayay weliba in badan adiga oolaad miyaa kuu joogto saabiriin oolaadaa u joogsa saabiriin waxaa u jooga gabar iyo wiil okay aan ogaano sida ay wax u dhaceen inoo sheeg wax kasta oo dhaco mashaakilkeena waxaan ahayn kuwa xalista weliba annagoo ismaqleyno is ixtiraamayno waxaa dhacday inuu dagaalkeena iyo khilaafkeena aad u bato aniga iyo maxamuud ilaa aan kala tagnay maalmo kadib furiinkeyga ninkeyga ayuu ahaa maalmo kadib albaabka waxaa igu soo garaacay mustaf saabiriin ninkeeda waxaan ku dhahay maxaa dhacay sidee wax u jiraan wuxuu i dhahay waxaan rabaa arrin inaan kaala hadlo waxaan dhahay soo gal ay soo fadhiiso sheex ayaan ku keenaa isla markiiba albaabka ayaa la soo garaacay markaan furay waxay ahaydba saabiriin way xanaaqday wayna iga shakisay waxayna igu dhahday waan ogaa inaad ninkeyga xiriir hoose la leedahay waxaa tahay khayaanooley saaxiib ma geshid yacni aad ay ii caysay ilaa xadkii ay dhaaftay weliba iyadoo aan isiinin wax fursada aan kula hadlo albaabkii wejiga iiga xirtay waxaan jeclaan lahaa mar uun inay ii dhegaysato balse ma suuragelin mana i maqlin aaday u maseersaneed xanaaqeeda xadka ayuu dhaafsanaa waxay ahayd qof aan dareenkeeda xakamayn karin marar badan ayaan ku laalaabtay si aan ugu sharaxo sida ay wax u dhaceen laakiin waan ku guuldaraystay kadib maxaa dhacay intaas kadib waxaan ogaaday inuu ninkeeda furay mushkiladeeda waxaaba ka sii weynaatay mushkiladeeda sababtoo furiinkeeda ayaaba dhacay waxayna ka bilaabatay marka horeeto dhibaatada aniga aan geystay oo ninka guriga aan ku soo dhoweeyey maalintaas buuqi ka dhaca dartiis ayaa loo furay
kadibna wuxuu ka qaatay labadii cunug run ahaantii taasna aad ayaan uga xumahay aniga waxaan kaaga mahad celinayaa maadaama aad u timid barnaamijkan si aad ula heshiiso saaxiibtaada insha allah ma kula tahay inay ka aqbalayso waa laga yaabaa inay iga aqbasho waana macquul haddii aan sideen kuugu sheegaa yacni waxaa jiro iyada wax ku qaalisan waana gabadheeda haddii aan soo xasuusiyo waa laga yaabaa inay cafiso sidaas ay tahay haddana ma hubo ma og yani waxaad ismoogtihiin sanad iyo bar adiga iyo Sabriin haa marwow anaga waan qaadnay risaaladaada waxaan u dirnay Sabriin aan isla aragno inay gaartay fariinta iyo inay ogolaatay aan ka daawana shaashada soo dhawow Sabriin ifadiiso sidee tahay caafimaadkaaga ka waran alxamdulilah waa fiicanahay waxaad ka soo jeedaa Suuriya sax haa mudane Suuriya dhinaceed ka timid laadaiya mar walba indhaha sidan miyaad u xirataa may wallaahi علشان barnaamijkan dadkiis miyaad u xiratay haa sabab laakiin maxaad dadka wejigaaga ugu qarinaysaa may wallaahi laakiin ma hadli kari xishood dartiis yacni adiga ma ogid sababtaad studiogan u joogtid sax maya waan ogahay maxaad u malaynaysaa inaad u joogto markii la keenay fariinta waxaa laygu dhahay ustaad George ayaa kugu wacay barnaamijka tartanka dib waxaan ku dhahay waa yahay tartan ma waxay kugu dhaheen waa tartan haa yaa allah boqol mar ayaan waxaan dhahay hadhiina waa tartan maxaa dhacay tartan ma ahan maxaa waay sida aad u malaysay ma aha dhib ma lahan waxaan dhahay Sabriin oo u dhalatay Suuriya oo ku nool Masar igu waca way fiicnaan lahayd horta adiga ma taqaana sida loo hayso may wallaahi haa ma haysi kartid maya Sabriin iiga waran xawaashaada maxaad haysaa ma lagu guursaday ma lagu furay awlaad miyaa kuu joogaan inoogu sheekay xawaashaada aniga horey waan u guursaday waad guursatay haa hadda garoobaad tahay haa hadda waa lay furay awlaad miyaa kuu joogto haa meeqa kuu joogto waxaa ii jooga Bashaar iyo Jana Bashaar miyaa weyn haa waa imase jir 4 sano ayuu jiraa maasha allah Janana waa 3 jir 3 sano maasha allah magacyadooda aad bay u qurux badan yihiin allah kuu xafido adiga miyay kula nool yihiin maya waan ka xumahay sabab aabbahoodaa qaatay sidee yacni markuu furiinka dhacay iyaga xaq muu lahan miya inay kula joogaan ilaa iyo waqti cayiman sidaas ma ahan dhibku wuxuu ahaa qasab ayuu iiga qaatay qasab ayuu kaaga qaatay haa wax shaqo ah maxaad ka shaqaysaa hadda maya ma shaqeeyo ehelkaaga miyaa inta degan maya ma degana kaligaaga miyaa nool haa mana shaqaysid maya sidee ku maraysaa noloshaada alla xaggiisaan ka noolahay alla xaggiisa Sabriin aniga waxaan rabaa inaan kuu sheego inaanan ahayn qofka xaqiiqda ah ee kuu wacay barnaamijkan magaciisa waa almusaamax kariim caadiyan aniga waxaan ahay fariin qaade wanaagsan dadka waxay iga codsadaan inaan ugu waco studiogan dadka ay rabaan qaarkood waxaa laga yaabaa inay dhibaato haysato waxayna u imaadaan si ay u xalistaan adiga ma rabtaa inaad ogaato qofka kugu wacay halkan haa dabcan okay shaashada fiiri aniga ma ogi horay inay indhaha u xiran jirtay in kale ee adiga ma taqaanaa haa dabcan ma taqaanaa qofkay tahay haa magaceeda waa Nada waa Falastiiniyad aniga inta waxaan u imaaday adiga daraadda haddii aan ogaan lahaa gabadhan inay inta joogtana ma imaan lahayn wax ma ku sheegaa maya waxba ha ii sheegin maxaad ku diidaysaa inaan wax kuu sheego waa sidaas yacni gabadhan kalsooni uma haayo kuma qabo wax kalsooni ah mana jirto gabar walaasheeda dili karto ama saaxiib
iyada saaxiib oo kaliya iima ahayn, waxay ii ahayd hooyo, abaayo, wax kasta ii ahayd, boos walbana way ii taagneed. xataa waxba ma qabsan jirin iyada la'aanteed. yacni aniga ma aqaano sideen wax kugu sheegaa. yacni lama filaan ayay kugu naqatay. haa, aad iyo aad. aniga miyaad iga xanaaqsan tahay? aad ayaan kaaga xanaaqsanahay. ma iga xanaaqsan tahay? haa, maxaa yeelay markaan inta imaanaya adiga darta ayaan u imaaday. waad ku mahadsan tahay. laakiin qof kale uma imaan. aad ayaan ugu riyaaqsanahay, waadna ku mahadsan tahay. imaanshaha aad halkaan imaaday khayr ayuu noqon doonaa insha allah. khayr insha allah. saabriin, ha xanaaqin, barnaamijkan sidan waa dabeecaddiisa. aniga waan kugu faraxsanahay, waana ixtiraama bini'aadamka oo dhan. dareenkoodan waan ku ixtiraamaa, khaasatan hadda adiga dareenkaaga waan ogahay inaad tahay qof horay loo dhaawacay. sidoo kale waan ogahay qisadiinna oo dhan, laakiin waa macquul saabriine inaad dulmi ku sugan tahay. iska ilaali. haddii adiga lagu dhihi lahaa oo lagugu dhihi lahaa waxaad jeceshahay ayaa lagaa qaadaa ama lagaa fogeynaa, xanuun ayaad dareemi lahayd, weliba xanuun aad u daran. qofka kugu sababay waxaasoo xanuun ah dabcan kalsooni kuma qabi lahayn. haddana ku khayaanay. waa runtaa. okay, laakiin arrintaasi waxay noqon kartaa dulmi, waana malo iyo shaki aan munaasab ahayn. calaa kulli xaal, nada way timid, waxayna go'aan ku gaartay in ay malaayiintan dad hortooda ay kugu sheegto xaqiiqada waxay tahay, kuuna cudur daarato. kama rabo aniga, run ahaantii waxba kama rabo. waxay kuu soo qortay fariin, waan kuu akhrinayaa marka hore, kadib go'aan gaar haddii aad la hadlaysid iyo haddii aadan la hadlaynin. ee iga dhegaysa fariinta, kadib go'aanka adiga ayaa iska leh, haddii aad dhegaysanaysid iyo haddii kale. waxay kugu dhacday saaxiibteeda qaaliga ah oo aan jeclaaye, aad ayaan kuugu xiisay saabriiney. waan ogahay adiga inaadan ku qanacsaneen inaad maqasho codkayga ama aad aragto wejigayga, middaas waan ogahay. laakiin wallaahi alcadiim saabriiney, aniga waan dulmanahay. saabriiney, waxaan masar ku imaanay si wada jir ah, waxaana ku riyoonaynay inaan nolol farxad leh ku bilaawno oo ka duwan midka beledkeenna. waxa dhacayna waxay ahaayeen wax nagu adag. saabriiney, waxaan xasuustaa wanaag walba oo aad ii qabatay, abaal ayaan kaaga hayaa. waxaan kaloo xasuustaa xiriirkeennii wanaagsanaa markii aan ku nooleen suuriya. waxaan kaloo iloobi karin bilowga guurkayga sida adag oo aad ii garab taagneed. wax kasta waan xasuustaa saabriiney, aniga oo sidaas oo dhan u og wanaagga aad ii samaysay. sidee ku dhici kartaa inaan ku khayaano? waxaa laga yaabaa inaad dulminaysid. saabriiney, waxaan kugu dhaaranayaa inaan ku khayaamin. waad i dulmisay, waxaadna igu dulmisay shakigaaga. maanta waxaan nahay laba qofood oo si keli ah u nool. maxaan isku dagaalsannahay? saaxiibtaydiiye, aad ayaan ugu xumahay. waxaan kugu cudur daaranayaa kaamirooyinkan hortooda iyo malaayiintana daawanayso. waxaadna tahay qof igu qaali ah, mana awoodo inaan noolaado la'aantaada. iska kay cafi, abaayadeeda qaaliga ah. nolol cusub aan bilowno, walmusaamax kariim. maya, ma awoodo inaan cafiyo, marna ma awoodo inaan cafiyo. laakiin hadalkan wax yar xataa kuma taabanin miya? wuu i taabtay, laakiin waxay igu samaysay aniga kuma samayn lahayn. wax xunay igu samaysay. laakiin iyada waxay dhahday wax kuma samaynin, waxnama dhex marin iyada iyo ninkaagaba, laakiin adigaa u malaysay. way i dhibaataysay. xaqa wixii aan u lahaana iyada darteedaa layga qaatay. ha ii sheegi sheekadaas. mararka qaar way dhacdaa, laakiin qofaan qalad galaynin miyaa jir saabriine? maya dabcan. marmarka qaar dadka si khaldan ayay ku shakiyaan. soo lagama yaabo adiga inaad si khaldan ku shakisay. nada, noo sheeg, siduu ku dhacay shakigan? iyada markay imaaday way soo garaacday albaabka. waxay aragtay ninkeeda oo aan weli aniga iyo asagaba wada hadlin. wuxuu rabay inuu wax ii sheego, laakiin ma aqaano waxay ahaayeen iyo siday wax u jiraan. balse isla markiiba saabriin ayaa imaatay. waxay kicisay buuq iyo qayli, aad bay u xanaaqday. okay, asaga muxuu gurigu u yimid? wuxuu rabay inuu wax igala hadlo, laakiin maba ii sheegin. waxaan ku dhahay shaax ayaan ku keenayaa. intaan jikada ku maqnaa oo aan weli karininba albaabka waxaa soo garaacday saabriin. markaan ka furayna arrintan ayaa dhacday. okay, saabriin, adiga ma waxaad aragtay wax aan wanaagsanayn? maya. maxay tahay sababta keentay shakiga? okay, waan kuu sheegayaa. asaga aad ayuu uga taxadarayay, wuuna ka damqanayay dhibaatadeeda, weliba si aad weyn uga taxadarayay. sabab maxaa keenay? maxaa yeelay waa saaxiibtaada. maya, macquul ma ahan taas. aniga iima soo galo ninkeeda, mana soo dhawaysanin. iyada maxaa u diidan sidaas? maxay guriga u gashatay?
soo sax ma ahan waa sax laakiin dhanka wanaagsan ka fiiri maya kuna cabir saaxiibtinimadiina nimankiinana waxay ahaayeen saaxiibo maya adiga oo aadan ii wacanin ma iska imaan karaa gurigaaga waxay ku dhahday kaalay soo gal soo fadhiiso asagana wuu rabay intaas ilaan waa nin markuu u galayne albaabka xitaa way xirteen haddana waxay u gashay jikada maxay ku dhacday sidaas sabab wallaahi nada yacni waxaa ka muuqda saabiriin hadalkeeda adiga maxaad ninka guriga u soo gashatay wuxuu igu dhahay waxaan rabaa inaan mawduuc muhiim ah kaala hadlo maxaad u dhihi weysay bax naagtaada u sheeg aniga waxaan u maleeyey inuu igala hadlaayo keliya dhibaatada naga dhexaysay aniga iyo maxamuud maxaa yeelay mar kastoo isdagaalno anigiiyo asaga wuu noo imaan jiray wuuna xallin jiray waxay iga fogaysay carruurtayda waxay baabi'isay noloshayda gabadhaydana way iga fogaysay wax walba ayay iga fogaysay sabab iyada maa sabab u ah waxaas oo dhan haa markaan u galay oo aan la hadlay isaga xataa wuu i garaacay wuuna i furay asaga miyaa ku garaacay haa aniga ayuu i garaacay markaad la hadashay miyuu ku garaacay haa markaan weydiiyey yacni markaad xanaaqday oo aad maseertay kontaroolkana kaa dhumay ayuu ku garaacay miya kadibna waxaa dhacday inuu ku furo haa wuu i furay xataa wuu iga qaatay owlaaddayda waxayna la joogaan hadda ayaydood waxaasoo dhan iyada ayaa igu sababtay gabadhayda in jaceylkayga laga fogeeyo iyada ayaa sabab u ah aniga maxaan qalad leeyahay marka yacni adiga hadda waad og tahay gabar markii laga fogeeyo hooyadeed hadda wiilka ma hadlayno waa gabar waa sax waa gabar laakiin wiilka buu u baahan yahay hooyadiisa labadaba way u baahan yihiin hooyadooda haddana way yar yihiin carruurtaada waa 4 jir iyo 3 jir waxaan iloobi karin run ahaantii dhibaatadaas weyn sug ukaadi dembiga oo dhan iyada miyaad dusha ka saaraysaa ninkaaga buu leeyahay dembiga waa sax wuu leeyahay iyada waxaa laga yaabaa wanaag inay u furtay albaabka waana caadi gabdhaha caalamka oo dhan haddii ay saaxiibtinimo ka dhaxayso way furaan albaabka micnaheedana ma ahan inay qalad samaynayaan ama ay wax dhex maraan adiga hubsiima la'aan ayaad xanaaqday xadkiina waad dhaaftay waadna caysay ilaa ninkaaga uu kaa garaacay maxaa yeelay uma adkaysan karin wixii dhacay okay adiga run ahaantii waad qaldantay wax yar run ahaantii waxay ila tahay inaad qayb ku leedahay qaladka haddii aad adiga wakhtigaas joogi lahayd anigii booskayga sidaas ayaa samayn lahayd maxaan u samayn lahaa yacni ma waxaan arkay qalad cad oo muuqdo albaabkay ka furtay waxayna u samaysay shaah taas ma sahlano mana ahan mid la qaadan adiga kuma arkin waxyaabo qaldan horta yaa u banneeyey nin iyo naag inay albaab wada xirtaan ma ahan dhaqan wanaagsan taas yaa shiiqa waxaa lagu jiraa qarniga 21aad dadka ma ahan kuwa iskula nool qayaano dadka waxay iskula nool yihiin guri oo ixtiraam ku dhisan kaasoo leh fadhi oo lagu wada sheekaysto wuxuu kaloo leeyahay qol jiif madbakh oo shaaha lagu diyaarsadana wuu leeyahay muxuu yahay adiga ad adeegan yaakhay calaa kulli xaal aniga ma rabo inaan galo faahfaahin intaasi dheer oo aan bedelo dhaqankaaga iyo dhaqanka dadkaba bis hal midaa muhiim ah marwadan waxay halkan u timid adiga dartaada dhammaan dadkan hortooda ayay rabtaa marka hore inay runta kaaga sheegto midda labaadna ay kugu raaligeliso iyo tan saddexaad oo ah inay kugu dhahdo waan kuu xiisay ee soo celi saaxiibtinimadeenna yacni iyada door muhiim ah ayay ka qaadanaysaa nadda adiga door muhiim ah ma ka qaadanaysaa maadaama ay saabiriin dartaada ugu nooshahay murugo yacni murugadaas waxay tahay inuu ninkeeda ka tagay haddana ka qaatay owlaaddayda haa keligeedana ay nooshahay loona diiday owlaaddeeda yacni gabadheeda iyo wiilkeeda noo sheeg adiga door muhiim ah ma ka qaadanaysaa inaad u soo celiso oo aad xalisa dhibkeeda sideeda hore ma ku soo celinaysaa haa ustaad aniga diyaaraan ahay haddii ay iyada ogolaato sidee diyaar ugu tahay waxaan kugu tixgelinaynaa inaadan dulmi samaynin sidoo kale waxaan kugu tixgelinaynaa in lagu dulmiyey balse noo sheeg sideed ku xallinaysaa aniga marka hore waxaan rabay inaan si wanaagsan wax kuugu sheego mowqifkaygana wuxuu yahay inaan wada fadhi yeelanno adiga ugu yaraan sideed ugu fikirtay inaan ku qayaano oo aan xumaantaas kugu sameeyo weliba intaas la eg inaan dumiyo gurigaaga ninkaaga uu ku furo ilmahaaga aan kaa fogeeyo waxay ahayd inaad i waraysato oo aad i dhegaysato waa ku baryaa i cafi weliba gabadhaada janno darteed igu cafi waa noloshaada aniga waxaan kuugu weydiistay cafis gabadhaada darteed waana ogahay darteed wixii lagaaga baahdo inaadan diidaynin weliba waxaan u hubaa sida wadkayga oo kale
mana ahan daawadayaasha hortooda oo keliya ee waa meel walba. qof walbana xaq wuxuu u leeyahay in la dhegaysto. hal mar oo keliya fursad isii oo i dhegayso. okay nada haddii aan su'aasha kuugu celiyo door muhiim ah ma qaadanaysaa inaad xaliso mashaakilka sabriin middaas noocadee haa ilan adiga ayaa sabab u lahaaye haa waan ogahay. sidee yacni noo sheeg korna u qaad codkaaga si laguu maqlo. marka hore haddii aan heshiinno anigii iyada oo aan ismaqalno waan xalinayaa iyada iyo ninkeeda dhibka ka taagan. markii hore aniga iyo ninkeyga markaa isdagaalno ama dhibaato aan dhexda ka galno iyada iyo ninkeeda wadajir ayaan xalin jiray. mushkiladaada waxay u sawiratay mushkiladeeda oo kale sidaad u xalin jirtay balka waran adiga maxay kula tahay? waxay iga soo martay shayga dunida iigu qaalisan. janna haa waa magac aad u qurux badan allaha kuu xafido. bashaarna sidoo kale allaha kuu xafido. ilaa meeqa ayaadan arkin? waxaan arkin ilaa iyo waxay dhan tahay 6 bil ilaa iyo 7 bilood ma arkin. 7 bilood waad isku dayday laakiin ma helin. waan isku dayay haa laakiin ma helin. insha allah haddii aad gacmaha isqabsataan labadiina oo aad dib u soo celisaan saaxiibtinimadiina sidii hore markaad imaanayseen masar sabriin abayo aan heshiino gacmahana waa isqabsanayna insha allah waad xalin doontaan mashaakilkaaga. yacni aniga ma rabo inaan kaa xanaajiyo balse ay ahaantaada nala wadaag sidee kula tahay ma jeclan lahayd inaad cafiso? khalaas aniga waan cafiyey waxayna iga soo martay gabadhayda jana. ma cafisay? haa waan cafiyey. هي موجودة هون. سوفيري ميغا حناقسنتها حتى صابرين هذا مياد إيغا حناقسنتها ميغا حناقسنتها عنيغا ميغا حناقسنتها إيشك maya ميغا حناقسنت ميا maya makaa xanaansanay ميغا حناقسنت سوما magaa xanaansanay aad iyo aadaa u mahadsantahay dhib ma lahan ma aqaan si aan kugu laakiin waxaan mahadceliyo. idinka rabaa inaad naqataan hal gacan oo aad nolosha wajahdaan oo aad naqataan kuwa mar walba garab isa siiya insha allah maca asalaama. maca asalaama aadaa u mahadsantahay. sidaan ayaa ah musaamax karim yacni marka hore wejiyaashooda waad arkayseen waxaa ka muuqday xanaaq buuq wajacbuusnimo iyo xaasidnimo bis alxamdulilaah wuxuu qaatay rubisac wuxuu ku dhammaaday si dareen leh waad aragtaan insaanka yacni khaasatan anaga carab ahaan waxaan nahay dad dareen badan waa inoo kulanti dambe iyo musaamax karim.